السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamayaa ummadda Soomaaliyeed. waxaan doonayaa inaan idin la wadaago qiso yar oo maanta dhinac markaad ka eegtana wallahi ma yarayn. gabadh aanu saaxiib nahay oo Mareykan ah oo muddo dheer isnaqaanay ayaa mar walba waxay iiga sheekeyn jirtay qisooyin soo maray. gabadhaasi waxay sheegtay inay waa Mareykanka madow wadankan ku dhashay loogu yimi. markaad aragto qof madow maaha, waa gabadh aad u qurux badan oo sida hablaha Soomaalida oo kale ayay u egtahay, way timo jilicsan tahay, waa light skin, laakiin originalkeedu waa Mareykan iska dhal ah, laakiin waa madow. caruur waxay leedahay Soomaali ah. wiilkii caruurta ka dhalay, familigii caruurta ay u dhashay, community-gii Soomaaliyeed ay maaragtay la kulantay dhibaatooyin aad u badan oo la soo mariyay bay iga sheekaysay. in markii hore ay inanka isbarteen aysan horta diinba haysan. soo lama dhihin qofku haduuna diinba haysanba, diinbaba lahayn, qofka muslimka ma gursan karo. diinba ma haysan, Christian ma ahayn, maxay ma ahayn, fulan ma ahayn, diinba ma haysanba. laakiin waxay tiri qof edeb leh ahayd oo akhlaaq wanaagsan, dhaqan wanaagsan u dhalatay, ilaahayna aaminsan inuu ilaahay jirana aaminsan. gabadhii inan Soomaali ay baratay. inankii Soomaaligii ay guursatay, way muslintay, way xijaabatay, awlaad bay dhashay. waxay sheegtay inuu wiilkaasi dhibaato badan u geystay. interview baan isiri maanta ka qaad. interviewgii wuu shaqayn waayay, waayo markaad laba su'aalood weydiiso oynaysaa. waxay tiri inuu cayn jiray, mar walba inuu cayn jiray. dadkani amba diintoo gaalood ha ku dhashaan, amba iyagoon diinba haysan ha dhashaane, dee gaaladu iyagoo awlaad bay iska dhalaan. waxay sheegtay in wiilkii markay barataa uga sheekaysay hooyadeed iyo aabaheed inay dhaleen iyagoon isqabin iyada. mar walbana uu ku isticmaali jiray arrintaas. uu dhihi jiray waxaa tahay garacad amba wicilad, qofka sida u yaqaan. inuu way buurnayd, inuu mar walba ku cayn jiray buurnida. Soomaalidii hadda timidee haddaad ku tira waad buurantahay, way ku dili, inay ku dilaan bay u gaadhayaan. Mareykanku aad bay u neceb yihiin in lagu caayo fat, waad buurantahay. waxay sheegtay in uu maxaan ku dhahdaa ku dili jiray, gacan ula tagi jiray, uu dili jiray. dhibaatooyinka ay ka sheekeynayso ee gabadha inanka Soomaaliyeed u geystay, subxaanallah, waad la oynaysaa uun. inkastoo qiso walba laba dhinac leedahay oo laga yaabo inuu isaguna wax kala tabanayo. gabadhii waa la furay, way ka tagtay familigii, nolosheedii bay iska gashay, nolosheedii Mareykankii bay ku noqotay. caruurtii xagee ku dambeeyeen? caruurtii iyada qaadatay, dhaqankeedii bay ku korisaa. caruurtii kuma korayaan diintii, dhaqankii kuma korayaan, Soomaalinimana waxba kama oga. barnaamijkaasaan ku guda jiraa. gabadhaasaan waraysigeedaan soo celinayaa. maxay kula tahay? su-aal aad qabto in la weydiiyo ma jirtaa? soo qor, kasoo jawaab. Soomaalida waxaan hayaa gobolkayga 7 hablood oo ajaaniba oo awlaad laga dhalay, oo 7diiba awlaadii looga tagay. 5 ka mid ah 7daas hablood ayaa waxay doonayaan caruurtii inay dhaqankoodii iyo diintoodii ku koriyaan. 2 ka mid ah waxay doonayaan inay dalkoodii geeyaan, oo ilaa Soomaaliya hadday nabad tahay caruurtii ay geeyaan. ma haystaan cid ay maxaan ku dhahdaa geysa oo kala xidhiidhaan oo maaragtay gacan ka siisa siday u tagi lahaayeen dalkii caruurta u geyn lahaayeen. kuwa doonaya in ay caruurtii diintii iyo dhaqankii baraana waxay ka cabanayaan community-gii oonan rabin inay gabdhahaas iyo caruurtaasi lagu soo dhaweeyo dhaqankii iyo diintii. sidaad u aragtaan Soomaalida daafaha adduunyada joogta ee cid walba guursanaysa, madow baad guursan, cadaan baad guursan, carab baad guursan, cajab baad guursan. wallaahi gabadh Soomaaliyeed gabadh la mida inaanad adduunyada si kasta haddaad u guur badiso inaanad guursanin. hadday gabadhii markaad isku dhacdaanna ee ay qadar xaalkaaga ku siisana caruurtii waa uga tegaysaa. hadday gaalati caruurtii way gaalo kolliba gaalay ahaanayaan inta badan, laakiin diintii hadday ka noqoto
oo ay diinteedii ku noqoto caruurtaadii diintii kalaa lagu korinayaa dembigana adaa iskale ilmahaagu hadduu ku koro Christian waa lagugu cadaabi ku koro wixii kale ee la caruur Soomaaliyeed oo cadceed caabudaa soo bixi doona oo raggii dhalay ay dayaceen wallaahi inaanan Soomaalinimada iyo diintiina iyo dhaqankiina iyo dalkiina aad ku ciyaaraysaan kaliya la idinku cadaabi doonine caruurtiina aad ka dhalaysaan naagaha ajaanibkeed uga tagaysaan baa la idinku cadaabi doonaa qisadoo dhammaystiran baan keeni doonaa haddaad su'aal qabtid in gabadha aan weydiiyo kusoo qor maxaan ku dhahdaa in videogan aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shanta habloodba waan keeni doonaa kolba mid baan interviewgooda keeni doonaa insha allah inanta next week baan keenaya waayo caawa waan dhammayn kari weyno markaanu haaf marayno inantii oohin ayay kala joojin kari weyday barnaamijkii waan xidhnay next week baanu ku celinaynaa insha allah shantoodaba waan keenayaa 2 gabdhood waa Mareykan madow 3 gabdhoodna waa Mareykanka cad qaar baa raggii intay ka tageen wadankii wadana kale sharci ka qaateen ay caruurtiina uga tageen qaar baa caruurtii korin kari waayay oo qaraabadoodii ku qoray islaamo maxaan ku raay iyaga ay wax isku yihiin ku qoray oo axad walba kiniisada la geeyaa والله رجل الصوماليين إنتينا علما إنتي كدشوا ناقة كلا وقتجية علمه هذا إن محن كره ذا كنيسة الجينية نفسي حبلهنا أتكجل لسان بالدين كجوين دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بان الدين سلام يا أمة الصوماليات وحن دوني إن الدين لو ذاقو قصة رومانتا إن لنا مركات كأكتنا والله ما يرين إن قبل أنو صاحبنا هاي أو مريكنا أو مدة دارس نقاني أيام مر والبا waxay iiga sheekeyn jirtay qisooyin soo maray gabadhaasi waxay sheegtay inay waa Mareykanka madow wadankan ku dhashay loogu yimi markaad aragto qof madow maaha waa gabadh aad u qurux badan oo sida hablaha Soomaalida oo kale ayay u egtahay way timan jilicsan tahay waa light skin laakiin originalkeedu waa Mareykan iska dhal ah laakiin waa madow caruur waxay leedahay Soomaali ah wiilkii caruurta ka dhalay family-gii caruurta ay u dhashay community-gii Soomaaliyeed ay maaragtay la kulantay dhibaatooyin aad u gaaladu iyagu awlaad bay iska dhalaan waxay sheegtay in wiilkii markay barataa uga sheekaysay hooyadeedii iyo aabaheedii inay dhaleen iyagoon isqabin iyada mar walbana uu ku isticmaali jiray arrintaas uu dhihi jiray waxa tahay garacad amba wicilad qof sida u yaqaan inuu way buurnayd inuu mar walba ku cayn jiray buurnida Soomaalidii hadda timiday hadda ku tira wad buurantay way ku dili inay ku dilaan been yar u gaadhiyaan Mareykanku aad bay u neceb yihiin in lagu caayo fat wad buurantay waxay sheegtay in uu maxaan ku dhahdaa ku dili jiray gacan ula tagi jiray oo dili jiray dhibaatooyinka ay ka sheekeynayso ee gabadha inanka Soomaaliyeed u geystay subhanallah wad lu inaysan inkastoo qiso walba laba dhinac leedahay oo laga yaabo inuu isaguna wax kala tabanayo gabadhii waa la furay way ka tagtay family-gii nolosheedii bay iska gashay nolosheedii Mareykankii bay ku noqotay caruurtii badan oo la soo mariyay bay iga sheekaysay in markii hore ay inanka isbarteen aysan horta diinba haysan soo lama dhihin qofku haduuna diinba haysanba diinba lahayn qofka muslimka ma gursan karo diinba ma haysan Christian ma hayn maxay ma hayn fulan ma hayn diinba ma haysanba laakiin waxay tiri qof edeb leeyahay oo akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan u dhalatay ilaahayna aaminsan inuu ilaahay jiran aaminsan gabadhii inaan Soomaali baratay inankii Soomaaligii ay guursatay way muslintay way xijaabatay awlaad bay dhashay waxay sheegtay inuu wiilkaasi dhibaato badan u geystay interview baan isiri maanta ka qaad interviewgii uu shaqeyn waayay waayo markaad laba su'aalood weydiiso ooynaysaa waxay tiri inuu cayn jiray mar walba inuu cayn jiray dadkani amba diinto gaalood ha ku dhashaan amba iyagoo diinba haysan ha dhashaan inay gabdhahaas iyo caruurtaasi lagu soo dhaweeyo dhaqanka iyo diintii sidoo aragtaan Soomaalida
daafaha adduunyada joogta ee cid walba guursanaysa madow baad guursan cadaan baad guursan carab baad guursan cajab baad guursan wallaahi gabadh Soomaaliyeed gabadh lamida inaanad adduunyada si kasta hadaad u guur badiso inaanad guursanin hadday gabadhii markaad isku dhacdaana ay qadar xaalkaaga ku siisana caruurtii uga tagaysaa hadday gaalati caruurtii way gaalo kulliba gaalay ahaanayaan inta badan laakiin diintii hadday ka noqoto oo diinteedii ku noqoto caruurtaadii diintii kala lagu korinaya dambigana ada iskale ilmahaagu haduu ku koro Christian waa lagu cadaabi had ku koro wixii kale ee la caruur Soomaaliyeed oo cadcid caabudaa soo bixi doona oo ragii dhalay ay dayaceen wallahi inaanan Soomaalinimada iyo diintiina iyo dhaqankiina iyo dalkiina aad ku ciyaaraysaan kaliya leedin ku cadaabi doonine caruurtiina aad ka dhalaysaan naagaha ajaanibkeed uga tageysaan bal leedin ku cadaabi doona qisadoo dhameystiran baan keeni doona dambeeyeen caruurtiyada qaadatay dhaqankeedii bay ku korisaa caruurtii kuma korayaan diintii dhaqankii kuma korayaan Soomaalinimada waxba kama oga barnaamijkaasaan ku guda jiraa gabadhaasaan wareysigeedan soo celinayaa maxay kula tahay su'aal adu ad qabto in la weydiiyo ma jirtaa soo qor ka soo jawaab Soomaalida waxaan hayaa gobolkayga 7 hablood oo ajaaniba oo awlaad laga dhalay oo 7diiba awlaadii looga tagay 5 kamid ah 7daas hablood ayaa waxay doonayaan caruurtii inay dhaqankoodii iyo diintoodii ku koriyaan 2 kamid ah waxay doonayaan inay dalkoodii geeyaan oo ilaa Soomaaliya haday nabad tahay caruurtii ay geeyaan ma haystaan cid ay maxaan ku dhahdaa geeysa oo kala xiriiraan oo maaragtay gacan ka siisa siday u tagi lahaayeen dalkii caruurta u geyn lahaayeen kuwa doonaya in ay caruurtii diintii iyo dhaqankii baraana waxay ka cabanayaan community-gii oonan